بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله سوماليد ميلة جوجتان بإله سبحانه وتعالى إذكوان ما يلو إدي اللي بندبك الله كقاضو إدي دن الله وفيون طبعا الله ديقوين تبكتا الله بكسيو intii dhimatay Allah u naxariisto waalidiinteena Allah u naxariisto annagana Allah nooga daba naxariisto dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo maanta waxaan ka hadlaynaa laba qodob xaaladii bariga dhexe kulayl aad u tiro badan qayladaan maxaa soo kordhay kelmadan ka oranaya baydhabo lafta gareen kadib xasan barwaaq ugu tagay iyo fudayd iyo hawl sahlan oo uu maamusho iyo mustaqbal ifaya mesashidu gacanta la galay iyadana kalmadan ku oranaya aan ku hormar baydhabo iyada fudud baydhabo waxa isugu tagay dhowr qolo oo competing powers waxa la yiraahdo xoogag tartamaya oo maxay ku tartamayaan qaar siyaasadda ku tartamayaan qaar dhaqaale iyo hanti bay ku tartamayaan qaarna xilal bay ku tartamayaan waxaan rabaa inaan idiin sheego baydhabo waxay dib ugu laabatay xilliyadii la soo dhaafay oo hore xilli ka foolxun waxaa la caddaynayaa dad ka badan kumanaan gaaraya kun dhaafaya oo al-shabaab ah oo shacbi soo ekeysiiyeen magaalada soo galeen waxaa kaloo magaalada lagu sii daayay maleeshiyadii lagu ururinayay buur xakaba ciidankii militariga ahaa oo professionalka ahaana magaalada waa laga saaray xeryaal la geeyey maxaa ka dhashay xaruntii degmada iyo waxaa qabsaday gruubkii buur xakaba Ilyas iyo Saddam iyo raggaas horboodaya waxay leeyihiin annaga canshuur bay qaadaanba annaga meesha ka dawladda dhanka kale madoobe isaguna madaxtooyadii iyo guriyihii martida mid kamid ah guriyo cusub oo laba ah marti oo la dhisay iyo baabuurtii dhagaxa ahayd oo proofka ahayd oo laba ahayd oo meesha yaalay iyo waxaas ku habsaday xasan wuxuu u sheegay ultimatum buu miiska u saaray madaxweynaha diga dhigaysaana ay dhisaysaa TikTok iyo waxaana la wareegayso qashinka meelaha ka qeylqeylin banaanka u tuur jaajusnimadooda iyo shabaabnimadooda ku filan ana ay dhisaysaa hadii kale mooshinkii miiskan soo saarayaan hoosteedu yaalana ku fadhiya miiskan saaraya xasan gacmuhu taagay waa isdhiibay wixii uu rag waday oo dhan hala tartamo afka waa ka yiri laakiin madoobe inuu dhiso buu ku khasbanaaday si isagu isu badbaadiyo maadaama uu jilicsan yahay oo 43 cisho uu haysto oo kaliya xilkan uu ka qaadi karo oo haysto number aad u tiro badan oo madaxweynaha ku kacsan ninka la yiraahdo Fargeeti waa yimi حسن يلاي وايمي وودا شرحين حسين شيخ وايمي isaguna kaloo yimi row oo aad u tartamaya xoogna leh baadiyo oo xasan sheekh ku yiri sharax buu ka careysan yahay oo ka dagaalamaya meeshana reerkiisa isaga ugu tugtugroon waxa loo kala baxay qabaa'il iyo dib baa loo noqday xilliga aaraaree baa dib loogu noqday 98 baa loo kala jabay warkoodana aad buu u faafayaa 200 oo saraakiilihi waxay raadinayaan positionka hadda ay haysteen mid ka fiican technique aad u tiro badan oo ilaa 70 iyo dhowra magaalada way ka baxday oo xariin baa gacanta ku haysata oo ciidamadii lafta gareen taageersanaa ah oo magaalada banaankeeda joogo arinta isha ku haya intaas oo marxaladood bay wajahaysaa baydhabo waxay qarka u saaran tahay inay qulqulato iyo khasaaro iyo dhibaato kala kulantay xasan sheekh maxamuud duulaankiisi waa la filay unstable way baydhabo kadib markay ahayd meel nabad ah muddo aad u dheer maanta 7 sano buu ninkaasi joogay oo uu ku joogay gardaro sida ay faafinayaan xasan iyo tiimkiisu 7 sano amni iyo amaan bay ahayd maanta waxaad idinka haystee aad muujisaan ama aad dadka tusaysaa idinka la idinka rabaa qodobka markii intaasan ka oranaya waxa ay saysta shido aad u tiro badan buu gacanta la galay allow maxaa loo kaageeyay bay ka taagan tahay
qodobkaas marka intaasan ka oranaya bariga dhexe waa sii kululaatay waxaan ku bilaabayaa Trump oo desperation cad banaanka la soo istaagay kow wuxuu yiri Hormuz annaga nama khusayso horeyna dhowr jeer uu yiri waa nin aan filtered ah diplomatic aan aqoon discussion ama hadallada siyaasadeed aan fahamsanayn ee iska dhaha wixii maskaxdiisa ku jira waxna aan qarin wuxuu yiri Hormuz wadamaday u taalo oo isticmaala oo noloshooda ku xiran tahay hadii faacadeen annagu waa taakuleynayna haday rabaan Iran waxaan dib ugu celinay Stone Age-kii buu yiri xilligii kayfafka iyo la degi jiray buuraha gudahooda godadka lagu noolaa baan dib ugu celin macnaha waa burburinay infrastructure badan bay dhibaateeyeen dad aad u badanna waa laayeen dhaawac tiro badanna waa geysteen hadalka markuu yiri dagaalka joojin mayno la yiri hal marba oilkiina cirka ku dhagay suuqi kalena crash garay طبعا business baa ku jiro waxay ka gadanayaan laakiin mushkilada meesha taal waxa weeye ninkii Trump ahaa wuxuu sheegay marka uu leeyahay gadaal baan u celinay qodobadiisii uu geeyay oo negotiation kana waa la reject garay oo wataan hore u sheegnay waa la diiday magaalada Tagbaaliir Iran dhankeeda dhaawac badan baa gaaray 9 qof bay maanta dileen oo meesha la yiraahdo Miyana iyo Laranistan ay ku dileen duqeyn Mareykanka iyo Israa'iil dhaawac badan baa loo geystay laakiin waxa la yaab kale aan idin sheegay aan ku hormaro Israa'iilna waa idin sheegaya GCC da gobolada la yiraahdana waa idin sheegaya GCC da aan ku hormaro UAE si joogto ah bay dhibaatadu ugu socotaa waxay la kulmaysaa hadda waxa la duqeeyay oo dhaawac yar soo gaaray aan weynayn Khalifa economic zone ama Kizat meesha la yiraahdo damage yar baa gaaray laakiin 4 qof oo civilian ayaa halka ku dhintay lagu dhaawacay 2 Indiana iyo xabad Bangladesh iyo xabad Sri Lanka Qatar iyo Saudi iyo Kuwait waxay cadeeyeen joogto in loo weerarayo loo beegsanayo xarumaha tamarta kuwa saliida waxay kaloo sheegeen airportadii hawadii inay tahay disrupted hawadii in la joojiyay oo la curyaamiyay airportka Imaaraadka ugu caansanaa khaliijka oo dhan iyo Middle East oo dhan wuxuu marayaa mararka qaarkood in la joojiyo shaqada suspension la geliyo marka GCC waxay la kulantay khasaare aan la qiimeyn karin ilaa ay naflacaari xataa Ukraine ay la saxiixanayaan heshiisyo ilaahay baa u maqan dad xayawaan u taliyo way wax kale oo la oran karaa ma jiraan markaan u gudbo Tel Aviv iyo Israa'iil iyo Mareykanku waxay ku celceliyeen 70% awoodeedii waa tirtirnay Iran dhageysta channel 14 wuxuu yiri the most intense attack dagaalkii ugu kharaara iyo weeraradii ugu adkaa oo ay Israa'iil kala kulanto Iran hadday la kulantay waa April 2nd maanta ayay la kulantay waxay la kulmaysaa gantaalada ballistiga ah oo iska soo daba dhacaya waxay kaloo cadeeyeen inay khalad ahayd gaf ahayd qiimeynta lagu sameeyay awoodda ciidan ama isdifaac ee Iran ay leedahay labada qodob isku darso awoodeeda gaf baan si khaldan baan qiimeynay labo dagaalkii ugu kharibnaa bay hadda nagu soo qaaday 33 maalmood oo dagaalku socday maantay ugu awood badan tahay ama dagaalkii ugu cuslaa ay nagu soo qaaday ama weeraradii ugu cuslaa waxay la dhacaysaa cluster bomb baalkii la lahaa madaxa intuu yimaado gantaalka madaxa xambaarsan qaybsamaya oo meel walba ku dhacaya waxay awoodi laayihiin hay'adihii amnigu inay u gurmadku inay u gurmadaan meelaha ay wax ku dhaceen maxaa yeelay hal mar baa 80 meelood 70 meelood wax ku dhacayaan oo burburaysa 40 building oo hor leh baa bisha koodeedii oo shalay ah la burburiyay meesha la yiraahdo Israa'iil waxa kamid ah meesha la yiraahdo Bnei Brak waa aragteen biyo ayaa dareeraya biyihii baa la duqeeyay daadad baa saa u soo fatahay meesha la yiraahdo Ramad iyadana saasoo kale dhaawac aad u badan baa loo geystay infrastructure-keeda dhanka kale Beit Shamim
waxaa ka dhacay dhibaato xoog leh bom shelterkii la duqeeyey oo kaniisadda ku hoos yaalay halkaas 9 qof baa ku dhintay oo kale kaniisadda hoosteeda bom shelterkii baa loogu tagay 9 qof baa ku dhimatay 6 baa ku dhaawacmay Beit Shamish keligeed wey Avivim iyo occupied Western Al-Jalil iyadana waxaa duqeynaya oo duqeyn joogta ku haya Hezbollah waxay geysatay so far 10 askarina waa dileen 14 kale oo shacabana waa dileen 309 waa inta ay sheegtay Israa'iil 309 dhaawacana waa geysteen iyaguna 1300 oo qof oo shacab ah ayay ka laayeen reer Lubnaan isku soo duuduubo dagaalkii haduuba wuxuu la baxay baar haduuba bilow yahay Iran waxay tiri oo madaxweynaheedu sheegay dadka shacabka ah ee Mareykanka iyo Westernka iyo Yurubiyaanka ma nabcin dagaalna kula ma jirno mujrimiinna soo weeraray baan iska dhicinayna dawlad diimaan iska dhicin hadalkaasi wuxuu dhaawacayaa oo dhibaateynaya Trump wuxuu marayaa inuu yiraahdo dagaalka waa wadaya haddana uusan ku dhicin inuu dhaho waa wadaya sababtoo ah nambarkiisi baa dhulka galay dimuqraadiga baa cirka maraya iyagoo aan waxba shaqaysan baa Trump u shaqeynaya Trump khaladaadkiisa dhibaatooyinka geysanaya baa isaga dhisaya oo soo saaraya mushkilada marka meesha taala waxay tahay imisay wadi karaan Israa'iil kadib markay sheegatay ciidamadooda inay ku dhow yihiin inay gabi ahaanba burburaan kadib markay iyadu sheegatay in waxa ku jira ku socda ay tahay waxaan macquul ahayn kadib markay sheegatay Iran in qiimeyn khaldan lagu sameeyay kadib markay sheegatay wixii ay laayeen waa baabi'inayna waxba ka jirin wixii ay haddaba kaba sii dareen oo maalmihii dagaalka 3 maalmood tii ugu darneed ay tahay tan ugu dambaysa inta markay sheegeen waxay si sir ah oo qarsoodi u la xiriireen Shiinaha America isku halay waayeen Shiinaha ay la xiriireen waxay ka dalbadeen in uu ka qalqaaliyo Iran ee dagaalka joojiso dagaalka hal la joojiyo Israa'iil ba hadda wada laakiin kor ma rabto inay u sheegto hoos bay wada dadka ay la hadli karto dhan bay la hadlaysaa hore waxaan idinku sheegay Trump inuu cid walba wacayo leeyahay waryaana kala qabta wuxuu caayayaa madaxdii NATO waa ku daysay waa burburtay iyaguna waa iska fahmeen waxay yiraahdeen Iran annagu la dagaalami mayno dagaalkana geli mayno warkaas halkaas ku dhamaaday waxaa marka soo baxday degdeg dagaal lagu galay si looga baxa in la laayahay Iranna intii laga rabay iyo ka badan bay wadaa kelmadda ku khatimi jirnay dhulka ilaah baa leh ciddu doonuuna guusha siiya caaqibada iyo cirib dambeedkana dadka wanaagsan baa leh xarajeynayna inay muslimiintu insha Allah ta'ala Iran wax ka bartaan inay sunnigu waliba ay Iran wax ka bartaan inay dawladan naf leh oo aan tuug ahayn samaystaan niman shaqadooda dhan ay tahay inay ciyaal suuqeeyaan oo khamri iyo naago iyo lacag ay boobaan oo ka shaqeeyaan baa haysta wadamada muslimiinta intooda sunniga ugu badan tuug iyo macsilow iyo khaa'in baa haysta halka Iran dadka madaxda u ahi buulal iyo guryo carshaana ay degan yihiin lacagina aysan u ahayn target ee ay u tahay sharafta iyo ciisada iyo karaamada dalkooda say u dhisi lahaayeen in wax laga daydo waxna laga barto baan rajaynayaa innaga Soomaali ahaan kuwaas hadda inoo madaxa waa kala daran bari baan ka hadli doonaa Deni iyo waxyaabaha uu wado laakiin kulligood waa tuug lacag beeso wax kale uma jeedaan saaqidnimo meeshii ugu darneyd iyo corruption bay u jeedaan iyo lacag boobaan mana dhargaan haday intay limit leeyihiin daan anagu 100 milyan baa idinka rabnaa 100 ka waa la siin lahaa naga taga la yiraahdo meel dar Allah idin dhigay 100 ka qaata waaba fiicnaan lahayd raja male waana cycle koox ah oo gacanteena ku dhigay xal baan u baahanahay haddaan nahay Soomaali culimo iyo caamaba intaynu isu tagno aragti tan ka duwan baan u baahanahay sidaan kuma jiri karno Iran waa in wax laga bartaa